waxaa sharaf ii ah in garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota inaan ku soo dhaweyno fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed ee Soomaalidu sida weyn u jeceshahay waa saaxiibkay waa Omar Barbar fanaankan maalmahan wuxuu nala joogi doonaa gobolka Minnesota inkastoo uu ka soo bilaabay magaalooyin kale oo waaweyn oo Soomaali badan ay ku nooshahay sida Seattle, Washington iyo waliba gobolka Ohio oo in muddo ah uu soo joogay haddana Minnesota wuxuu isku soo aadiyay xilliga Minnesota la yimaado malaha odayga qish badan oo qaatay dad badan oo la tashtay maadaama anagu aan ku jirnay xilliga qabobaha iyo barafka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo Omar Barbar anigoo wakiil ka ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota haddaba Omar waxa uu ku jiraa gacantiina waxa la idinka doonayaa inaad si sharaf leh oo wada jir ah aad ugu soo qayb gashaan munaasabad weyn oo halkan uu ku dhiganayo Omar abti wax badan aan ku sugeynay soo dhawow hadalkii inta ugu badneed deeq baa sheegay waxa kale ku soo dhawow abti waa dhawahay deeq darajo iyo kabraay iyo magaalada Minneapolis Minnesota soo saasma Minnesota gobolka Minnesota magaaladuna waa Minneapolis ilaahay iguma ceebayn magaalooyinkii hore aan tagay aan isku fiicannahay waan ka imid tan waxaan rajeynayaa ilaahay igu ceebayn annagoo aan isku fiicannahay aan kala tagno waxaan ka bilaabay magaalada oo ka soo bilaabay miidiyaheedii afhayeenkii magaalada deeq darajo magaalo kasta waxay leedahay afhayeen iyo meel wax looga soo tabiyo waxaan ka soo bilaabay deeq darajo taas aad doortay insha Allah biidnillaahi kariim waxa inoo balana dadka intiisa kala cashada sharaf iyo karaamo waxa ay ah in aan u imid ummad Soomaaliyeed oo isku duuban oo laandeera oo Ilaahay islaam taqaan oo madax xatimo ku leh deeq darajo waa ka qaba inaad soo dhaweynta wiilkan abtiga wahay kabraay the one and only legend waa ka qaba adigana